kusimaaga madaxweynaha waana wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo kala kulmay saraakiil ku dareerta hay'adda MSF waaniyoon ku dawaheen sidii shaqo abuur leen ka soo beelahay dhalinyarada ka nool gobolada koonfur galbeed Soomaaliya warbixin amortay ku saabsan waa ko Maslax Saalax Maxamed Maslax Raage kulan shir gudoomiyaha kusamada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee wasiirka beero iyo waraabka dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi walina ku ibgalay kulankaasi wafud ku dareertay hay'adda MSF walina ku ibgalay kulankaasi wasiir iyo xildhibaan iyo saraakiisha caafimaadka dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kulankan iyo waliba dhan ku hadalaya jandiyaal dhowr oo ku mid yihiin sidii ku taa ku leeyahay adeegyada caafimaadka deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo inta shaqo abuur lan sameeyay dhalinyarada ku jeeda deegaanada dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marka kulanka dhamaaday kureeda iyo waliba warfadeenka la hadalay afeenka maatooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Nuurdin Yuusuf Abuukar Gama maanta magaalada ay xarunta kumeel gaarka u ah dawladda koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo waxa soo booqday wafdi heer sare ah oo MSF ka socda kuwaasoo indheyn badan sameeyay oo waxyaabo badan ka baarayay ama baaritaan badan sameeyay oo dalka koonfur galbeed ka kooban yahay gobolada marka waxay maanta u yimaadeen inay hooshii dhaqan galiyaan oo sidii shaqada u bilaaban lahayd sidii hawlo badan loo sameyn lahaa waxa kamid ahaa Hilman Maxamed Suudani oo ah madaxa barnaamijyada ee MSF Soomaaliya sidoo kale waxa kamid ahaa Raul Salvador oo Philippine u dhashay oo asina kamid ahaa medical coordinator ah waxa kamid ahaa Mohamed Khalil oo kamid ahaa humanitarian affairs of Horn of Africa ayuu ahaa asigana madaxa sidoo kale Abdi Karim Tahriil Goore ayaa kamid ah deputy humanitarian ah waxayna soo booqdeen magaalada Baydhabo sidii hawlo badan ay qaban jireen ay dardarkeeda u bilaabi lahaayeen waxayna dhisi doonaan insha Allah goobo badan oo caafimaad ah oo sidii caafimaad ahaan dadka loo kaabi lahaa waxay sameynayaan oo ay ka sameyn doonaan degmooyinka gobolada koonfur galbeed sida gobolka Baay Bakool sidoo kale Shabeellaha Hoose waxayna daaweynayaan daawooyin free ah oo qof walba oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka bulshada goboladan koonfur galbeed Soomaaliya oo ay u tahay si free ay ku heli doonaan haddii Ilaahay raado sidoo kale waxay qoranayaan shaqaale badan oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada intaasna way sameyn doonaan waxayna la kulmeen golaha wasiirada qaar kamid ah waxay la kulmeen gudoomiyaha shirka waxa kamid ahaa oo ka qayb galay ayraada gudoomiyaha degmada kusimaha gudoomiyaha gobolka waxaan shir gudoominayay madaxweynaha kusimaha madaxweynaha ayaa shir gudoominayay marka waxyaabaha lagu hadlay taas bay ahayd si wax qabad dhab ah loogu sameeyo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay inta badan isku hawshaa sidii dadkeeda loo tabaalisan mise dhibaatada haysato looga bixin lahaa xaduudeedana ma xirna qof walba wax u qabanaya hay'ad walba wax u qabanaysa iyo group walba wax u qabanaya dalkan in lagu soo dhaweeyo kulankan geeko ku furmay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay iyo gabangaabadii hay'adda xuduudan lahayn ee MSF iyo waliba la filay inta ku gudubinaad kulamadii horaanka ku furmay jari gudaha magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay Maslax Saalax Maxamed Maslax Raage TV-ga dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo